بسم الله الرحمن الرحيم كلنت wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada waraysi kooban oo aanu halkan kula yeelan doono Cabdiqani Maxamed Wehliye oo ah agaasimaha guud ee adeegga dadegista ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo aan weydiin doono su'aalo kooban oo ku saabsan waxa uu yahay adeegga dadegista Cabdiqani marka hore soo dhawow marka labaad waxaan rabaa inaad sharaxaad kooban naga siiso waxa ay tahay adeeggan dadegista iyo shaqooyinkiisa waxaan tahay adeegga dadegista waxaa loola jeedaa diiwaangelinta dhalashada guurka furriinka dhimashada iyo qoyska mar alla markii dhacdooyinkaas xaaladaha madaniga ay dhacaan ayadoo lagu diiwaangelinayo si waafaqsan shuruucda dalka adeeggan waa adeeg soo jireen ah oo weligood ay bixin jirtay dowladaha hoose dalka haddana ay bixiyaan dowladaha hoose ee dalka waayahay tusaale adeeggan xafiisyada laga heli karo xagee ku yaalaan sideese loo heli karaa adeeggan waxaa laga heli karaa xafiis walba oo dowlad hoose ee dalka ka jira farqiga u dhexeeya adeegga hadda dadegista midaysan iyo adeegii hore ee dadegista iska cashwa degmooyinka ay wada bixin jireen waxa waaye in hadda adeegii la nidaamiyey oo xeerka number 46 abril 2026 faafinta rasmiga lagu daabacay uu dhaqangel yahay xeerkaas oo waajibinaya qof walba oo Soomaaliya ay kula dhacdo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay kula dhacdo xaalad madani ah ama dhalasho ha ahaato ama guur ha ahaado ama furriin ha ahaado ama dhimasho ha ahaato in dowladaha hoose ay diiwaan geliyaan adeeggan wuxuu muhiim u yahay adeegyada qaranka oo ay tahay in mataqaanaa xogtaas qofka ay ka soo qaataan adeeggaas dadegista markii dowladda hoose ay diiwaan gelisa adeeggan rikoorkaas waxay usoo diraysaa diiwaanka qaranka oo ah agaasinka adeegyada dadegista diiwaankaasna uu ahaanaya diiwaankii qaranka oo mar walba laga helayo xogtii muwaadinka oo mataqaanaa xilligeedii ah oo ku heli karo dhammaan xuquuqihiisa kale waayahay aad waa mahadsantahay adeeggan tusaale adeeg hadda shaqeeya oo la heli kara miyaa mise waa adeeg la qorsheynayo in la bilaabo adeegga mar walba la heli karaa dadegista waa dadegis degmo walba oo dalka mid hadda way bixisaa inkasta oo adeegga dhaqangalka sharciga uu hadda bilaabay 30 degmo uu ka bilaawday oo adeegsada adeegga dadegista midaysan haddana dadegista oo dhan wadanka waxa waaye waa valid waaye diiwaankooda lagu jiraa adeegga dadegista midaysan wuxuu sii xoojinayaa waa adeeg qaadan doona baahintiisa muddo dhammaan dalkan ka wada dhaqangeli doona hadda waxaa laga helaa 30 degmo oo ku yaala dowlad goboleedka Jubbaland Hirshabelle Galmudug koonfur galbeed iyo waqooyi bari waxaa qorshaha yahay inay ka dhaqan gasho magaalada Muqdisho iyo dowlad goboleedyada dalka oo dhan Cabdiqani waa kaaga mahad celinaa sida kooban ee aad u sharaxday su'aashaas waxaan rabaa marka inaan faham guud ka helno tusaale adeegyada iyo shahaadooyinka oo la helayo waagii hore sida hadda sheegtay qofku dhalashadii sugnaan oo kaliya uu doonan jiray wax kale uma baahnayn laakiin adeegyadan kale ee diiwaangelinta madaniga ah sida shahaadadii dhimashada oo kale furriinkii guurkii waxbaa la midka ah marka la isku wada daro adeegyadan dadku ma si bilaash ay ku helayaan oo lacag la'aan ah mise qarasha kaga baxaya waa mahadsan tahay adeegyadan horta marka hore waa adeegyo xuquuq ah oo muhiim u yihiin qofka inuu mataqaanaa xaqiisa sugo haddii cunug u dhashay waa cunugkan aniga dhale haddii uu qoys leeyahay qoyskan aniga mas-uulka ah haddii gabadhii ay tahay xuquuq ay leedahay la xiriira guurkii inay maxkamadda u dalban karto markhaati la'aan oo dowladda uga markhaati kacaysa in guurkaas uu jiray dhaxaltooyada lafteeda dhimashada muhiimay u tahay iyo sideedaba qofka inuu ahaa qof muuqda qofkan Soomaaliya ahaa wadanka ka jiray waa in diiwaanka dowladda uu ku jiray marka waa diiwaankii weynaa ee dowladda adeeggan marka waxaa hadda soo kordhay waxaa waaye sharciga qarankaa soo kordhay sharciga wuxuu qofku u saamaxayaa inuu xuquuqdiisa uu helo oo diiwaanka uu galo si bilaash ah dowladaha hoose waxay dad qofka qaadi doonaan qarashaad oo la xiriira adeegay u qabteen qarashaadkaasna wuxuu qofku markuu uu codsado inuu helo caddaynta diiwaanka ayay waxay
xaq u yeelanayaan inay ka qaadaan laakiin ilaa qofka ka galaya diiwaanka oo ay tahay waajib qofka inuu galo sharciga wuxuu dhigayaa inay tahay bilaash. aada u mahadsan tahay si fiican aan u fahmay. waxaan rajaynayaa dadku inay sidaas oo kale fahmi doonaan. tusaale dadku su'aalaha ugu badan ee soo weydiiyeen waxaa ka mid ah helitaanka adeegan oo kale shahaadada dhimashada oo kale. tusaale waxay leeyihiin qof tusaale qoyskayga ka mid ah oo dhintay muddo ka hor tusaale sanad ka hor oo kale ma heli karaa shahaado dhimasho mase waa dhawaanahan waxyaalihii dhacay oo keliya adeegyaday heli karaan? wuu heli karaa qofka. sharciga wuxuu dhigayaa diiwaangelinta habraacyadeda u dhigayaa diiwaangelinta dhacdada dhimashada ee hadda dhacdayna qaar loo diiwaangelinaya jirta. waxaa kaloo jirta waxa la yidhaahdo diiwaangelinta daahday dhacdo xilligeedii aan la diiwaangelin oo muddaysan in baaritaan lagu sameeyo diiwaan hayaha dowladda hoose uu go'aan ka gaaro sugnaanshaha dhacdadaas diiwaankana uu geliyo. bilcagsi dhacdo walboo dhacday in la diiwaangeliyo ayaa sharcigu u qasbaya. waxaad sheegtay hadda markaa sharaxaadda bixinaysay in adeegan laga heli karo xarumaha dowlad goboleedyada oo dhan ilaa dowlad goboleedyo mucayan aad sheegtay qorshuhuna yahay qof kasta oo muwaadina inuu ka helo deegaankiisa adeegan. dad badan oo Soomaaliyeed waxaa jira dibadaha ku nool oo markay qaxeen halkaas qoysaskooda ay ku tarmeen dadkaas ay ku heli karaan ayaga laftirkooda. sharciga dhigaaya sharciga wuxuu dhigayaa in adeega muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa jooga ay ka heli karaan safaaradaha iyo konsuliyadaha Soomaaliyeed ayna tahay xaq ay leeyihiin inay helaan si lamida dowladaha hoose. adeegan waxaa bixiya safaaradaha iyo konsuliyadaha. adeega dadbigista midaysan waxaa adeeg lagu horumarinayo adeega dadbigista si guud oo la geyn doono safaaradaha iyo dhammaan dowladaha hoose ee dalka si qofka automatically intii diiwaanka xagga laga soo qaado la keeno wasaaradda arrimaha gudaha qofkii laga diiwaangeliyo diiwaankiisa dibadii loo baahdo haddana mar labaad safaaradda lasii mariyo in hal diiwaan oo qaran uu jiro qofkii markii dowladda hoose soo diiwaangelisaba adduunka meel walba joogo oo caddayn karo in diiwaanku ku jiro. tusaale ahaan ilmaha oo kale marka la diiwaan gelinayo ilmuhu ma markuu dhashayba ma la diiwaan gelin karaa mise waxaa jirta da ay tahay inuu soo gaaro oo la diiwaan geliyo? ilmaha sharciga wuxuu dhigayaaba in la diiwaangeliyo markii ay dhashaan. waxaana diiwaangelinta kasoo bilaabanaysaa sida sharciga habraaciisa uu dhigaayo goobta uu ku dhashay hadduu isbitaal ku dhashay ama umuliso ay dhalisay in umulisadaas ay usoo gudbiso dowladda hoose in dhacdaas ay dhacday hooyadaas inay dhaliso cunugaas faahfaahintii dhacdada hooyada dhashay meeqa kilogram oo cunug markuu dhalinayay iyo waxyaabaha la xiriira mataqaana ay u baahan tahay statisticska ahaan in loo soo saaro hadhow reportka. marka isla markaas haddii ay dhacdaas la diiwaangelin waayo muddo sanad gudaheeda markay dhalasho dhacdo waxay noqonaysaa diiwaangelin daahday waxaana kori doono sharciga soo dhigaayo ganaax markii la diiwaangelinayo. waayahay aada u fahmay. dadku markay diiwaangelin maqlaan waxaa laga yaabaa markiiba inay ku soo dhacdo kaararkii tusaale national ID oo kale neero shahaadadii oo dhalashada oo kale inay ku soo dhacdo laakiin aanay maskaxdooda ku soo dhicin adeegyadan kale oo qas. marka qofku hadduunan adeegyadaas helin diiwaangelintaas samaynin ma jiraan waxyaabo uu weyn karo hadduu sameeyo se ma jiraan wax uu ku heli karo qofku? sideeda waxay ahayd qofka inuusan helin aqoonsiga qaranka haddii uusan diiwaanka dadbigista ku jirin. laakiin maadaama burbur ballaaran oo dalka soo gaaray isku xirnaanta adeegyada dowladaha hoose iyo dowladda federaalka ahaa oo aada daciif u ahaa waxaa loo sameeyey sharciga cusub waxaa loo dhisay agaasinka adeegyada dadbigista in la keeno heer adeegyada dadbigista ay noqdaan adeegyada lagu helayo dhammaan xuquuqda. asal waxaa ah qofka in la sugo inuu jiro oo dhashay oo waalid hadda intaan sharciga jinsiyadda Soomaaliyeed wuxuu dhigayaa citizenshipka qofka Soomaaliga ah waa qofka mataqaanaa aabihiis ama waalidkiis uu yahay Soomaali sidee lagu soo karaa waa in la diiwaangeliyo markuu dhashay yaa dhalay markaas ayuu qofkan uu dhashay warqadiisa caddaynta u haystaa warqadiisii sugnaanta u haystaa family qoyska ku jira qofkaas wuxuu xaq u leeyahay oo toos ah inuu helo adeegyadii ku xigtay dowladda. marka gaabkaas jiray ayaa horumarinta dadbigista waxay ka dhigtay muhiimad gaar ah dowladda federaalka saartay. dowladaha hoose waxaa la rabaa inay shaqada si saxda u qabtaan oo qof walba oo deegaankooda ku dhasha ama ku dhinta ama ku guursada ay diiwaangeliyaan diiwaankaas oo noqdo diiwaan lagu kalsoonaan karo
usoo gudbiyaan diiwaanka qaranka oo diiwaanka qaranka ku jiro qofkaas marka wuxuu xaq dhammaystiran u yeelanayaa adeegyada sharciga mataqaanaa uu siiyey oo dhan haato muwaadinimo haato waxbarasho haato xuquuqa aada mahadsantaha waxaan rabaa inaan kusoo gabagabayno maxay tahay fariintaada kooban ee aad dadka kugu dhiirigelinaysa inay adeegyadan isticmaalaan waxaan ku dhiirigelinayaa culeysyo badan ka jiro hadda adeegyadan asaasiga ah oo qofka markii uu soomaalida waxaa lagu sheegaa degdeg tiro badan marka qofku wuxuu u baahan yahay rabaa saacado kooban inuu orod uu ku galo degdegaas waxaa looga bixi karaa diiwaanka qarankana waa ku saxmi karaa adeegyada bulshadana ay ku toosi karaan qofka inuu habraaca sharciga raaco oo marka dhacdo ay ku dhacdo wixiisa dukumenti garayso adigu hadda guri gadanayo guri haddaa gadatid ma waxaa la wareegaysaa sabablooga maalintaa ratid inaad sii gedid base waxaa la wareegaysaa maalintaa gadatid iskunaashashaysa cunug markaa dhashid cunugan dowli ahaan codaa dhalay cid walba ku aqoonsan tahay laakiin dukumentiskiisa iyo adiga kaagaba marabkaas xaq ah inuu qofka yeesho waxaa la lahaa aqoonsiga sharciga ah aqoonsiga sharciga u samaynaysaa kadib mar walba oo adeeg kale oo dhulkaas u baahdo aqoonsigiisa sharciga ah ayay kula doonaysaa laakiin maalinta keliya u baahan tahay inaad la safartid haddaa dhahdo wixii hadda samaynaya waxaa noqonaysaa adeegan inaad dadkii laaluush meeloba la aadid orodid lacagaan loogu talagelin kaa baxdo dhulkan diiwaankii ku jiran xilligiisii hadda gelisid marka waxaan kula dardaarmayaa sharciga wuuna diyaarsan yahay sharcigeena sharciga waxaa waaye lamid ah shuruucda kale adduunka hadda ka jirta oo u danaynaya bulshada in adeeg fiican ay helaan dowladdana ee maamulkeeda hagaajiyo marka in laga shaqaysiiyo waxaa loo baahan yahay in la isku tago oo dadkiina ay adeegooda xaqa ay u leeyihiin doontaan marka ay xaqa u leeyihiin dhiirigeliyaan in adeegan uu saxsanaado hay-adaha dowladdana ay u qasbanaadaan inay bixiyaan adeega si waafaqsan sharciga